Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan bilaabaynaa casharro ku saabsan QuickBook oo ah software accounting oo ay isticmaalaan businessyada yaryar. Casharkan koowaad insha Allah waxaan ku baranaynaa sida loo sameeyo company cusub, sida user ama qofkii adeegsan lahaa ama dadkii adeegsan lahaa loo sameeyo, iyo dadka adeegsanaya mid walba kaalinta iyo awoodda uu leeyahay. Sidoo kale waxaan ku baran doonaa kambaniyada aan sameynay ama company aan sameynay sida aan furi lahayn. Aan bilowno. Waa qaybta koowaad oo ah sida company cusub loo sameeyo. Haddii aad rabto company cusub inaad sameyso, waxaa imaanaysaa halkan geeska file oo geeskana hore geeskaas ah. Goorta timaado file waxaad dhahaysaa new company. Waa new company goorta tiraahdo optionno badan baa ku soo baxaya. Express baa kamid ah, advanced setup baa kamid ah, other options baa kamid ah. Qaabka ugu fiican ee haddii aad ku cusub tahay QuickBook waxa weeye inaad doorato option kan ah Express Start. Kaasaan dooranayna Express Start aan riixnay. Kadibna meelaha u fiirso, meelaha banbanaan ee boxyada ah, meelana waxaa saaran xidig guduudan oo ka fiican fiiri, xidig guduudan baa saaran. Hadda tax ID oo kale waa maxay? Wax xidig ama saarna. Meelaha xidigta guduuda ay saaran tahay waa waajib oo required inaad buuxiso. Marka meelahaas aan buuxin doonaa. Company name mesela waxaan u bixinaynaa Hillaac oo kale. Industry macnaheedu waa maxay? Company-ga ka nooc uu yahay. Wax ka soo qaada inuu yahay company consultant ama la talina. Consultant isaga ku hagaya consultation day. Okay, ama construction baan niri. Company type nooc uu yahay ama sole proprietorship ama partnership oo limited liability ah. Waxa hadaadan fahmayn dadka business-ka fahmay waxaad ka tiraahdaa other ama non iska dheh. Hadaa fahmi weydo company-gaada nooc uu yahay. Waa inta kale required maaha. Marka continue way dhahaysaa halkaa hoose. Continue dheh. Waa meelaha kan sidoo kale boxyada tan waajib ma aha inaad buuxiso, kaliya waxaa waajiba meesha zip code-ka iyo phone inaad buuxiso. Annaga US ma joogno, wadankan aan joognaa. Wadamo kooban baa halkan ku jira. Soomaaliya oo kale joogta ka soo qaad. Ada waa dhahaysaa marka maadaama halka aanu ku jirin. Zip code-kii oo free lagu soo gelaya halka ku qoraynaa 252. Kadibna maxay telefoonkii? Anuu telefoonka dhameystiran ma buuxinayo, mesela hal lambar waan gelinayo. Kadibna create company dhe. Ka u dhameeyo. Mesela haddii aad rabto dadkii ka shaqeynaya employees-ka ahaa, ama haddii aad rabto dadkii macaamiisha ahaa, ama dadkii wax ka soo iibsanaysay oo company-ga wax ka soo iibsanayay, halkan add baa taabanaysaa, add the people meeshaas ah. Anaga hadda waxba meesha ku mashquuli mayno. Company-ga sidoo kale badeecado buu iibiyaa ama adeegyo iyo service buu bixiyaa. Badeecadaha iyo service-yada aad bixiso haddii aad rabto halkan add the products and services baa imaanaysaa. Bangiga tusaale ahaan aan u sameynana hadeer bangi waan ku xiriirinaynaa. Mesela bangiga ka soo qaad waxaa la dhahaa Barclays baa la dhahaa. Account number-ka halkan ku qoraysaa. Account number-ka waxaa ka soo qaadaa eber 7775 tusaale aan soo qaadanay. Opening balance oo ah lacagta hadeer taal. Mesela ka soo qaad $1 baa taal, kun geli. Waxa calendar-ka kale ujeedo macnaheedu waa halka. Okay, kadibna taariikhda ka dooro. Taariikhda maanta waa 16 weeye. Taariikhda kan dooranayna. Kadibna waxaad tiraahdaa halka hoose imow continue. Halkan markaan marayna wuxuu leeyahay laba option baa inoo bannaan. Mararka qaar lacagta inaan toos u bixin baa laga yaabaa aad jeeg bixiso. Halkan QuickBook wuxuu ku leeyahay si waqtiga aad u save gareysato waxaad doorataa QuickBook inuu isaga ku sameeyo jeeg. Marka anaga hadeer ma rabno, laakiin haddii aad rabto inuu nooca noqdo order no waa dhahaysaa. Laakiin anaga hadeer no thanks baan dhahayaa. No thanks goorta raado halka ma imaanayo continue halka hoose. Kadibna start waa kan dheh oo halka hoose ah. Waayo company-geeni waa uu samaysan yahay. Waayo haddii aad rabtid marka in aad ogaatid lacagta bangiga ku taal, waxaad sameynaysaa horta ugu horeyn view-gan bedelayna view dhe top dhe. Halka ma imaanana waa ka account balance ku qoran tahay. Halkaas account balance goorta tiraahdo Barclays $1 baa taal, waa halkaas ka muuqanaya. Waayahay qaybta labaad baan u gudbaynaa. Qaybta labaad waxa weeye company-gii waa sameynay. Company-ga haddaan sameynay marka company-ga intaasoo shaqaalaha ka shaqeynaya. Shaqaalaha waxaa laga yaabaa mesela 2 gelin oo kale ama 2 shift inay tahay, 2 shaqaale inay QuickBook wax ku kala qoraan. Labadii shaqaale waxaa rabtaa marka mid walba account gaara uu soo galo inaad u sameyso. Waxaan sameynaa marka users baa la dhahaa. Users-ka haddii aad rabto user inaad u sameyso waxaan sameynaa marka company-ga imow. Halkaa company ah aan weyneeyo. Halkaa way dusha sare company. Company waan imaanaynaa. Kadibna
hoos soo soco halka users baa imaanaysa users goorta aad tiraahdo kadib set up users and roles ka dooro halka riix aan ku celino company waa niri kadibna users baa imaanaysa users goorta timaado kadib set up users baa imaanaysa waayo mid hore oo waxa jira uu QuickBook si automatic u sameeyay ka lama tirtiri karo waana adminkii weeye haddii marka aad rabto adminkeena magac u bixiso kale edit baa dhahaysaa haddii مثلا aad rabto inaad laba ka dhigto code garaaso duplicate baa dhahaysaa haddii aad rabto gebigiisa inaad tirtirto delete baa dhahaysaa laakiin hadeer adminka awood uma leeyahin inaan delete no sababtoo ah ama userka awood uma leeyahin inuu nafsadiisa tirtiro marka mid cusub baan rabnaa inaan sameeyno ka ka soo qaad waa administration key guud ee company ka maamulay QuickBook-gana waa maxay awood buu u leeyahay inuu userada kale ku soo diro ama uu ka saaro marka mid cusub baan sameeynaa shaqaale ah new goorta timaado userka cusub magaciisa si مثلا ninka gelinka hore shaqeeyo kale waxa la dhahaa Ali ka soo qaad passwordka hadaad doonto waa ka tagi kartaa laakiin aan u sameeyay fiican mid fudud aan sameeynaa inuu 1 2 3 waaye ninka Ali marka muxuu awood u leeyahay way awoodaha u leeyahay halka مثلا accountant iyo kale miya accountant iyo kale haduu yahay roolka iyo kaalinta iyo awoodda u leeyahay halka hoose ka akhri ninka waxa awood u leeyahay bookkeeping wax ku saabsan accounting staff shaqaalihi accounting area sida tusaale ahaan journal entry in wax gelin karayo charts of accounts kii tusaale ahaan closing date iyo password-yadii waxaas waa maxay taxes-kii canshuurihii awood buu leeyahay marka Ali hadii uu nooca yahay admin marka waa ka roolka waa sameeynaa rool kale oo sameyn kartaa مثلا hadii uu awood u leeyahay inuu shaqaalaha mushaharkooda uu isagu maamulo مثلا waxa dooranaysaa payroll manager ugu dar tusaale ahaan admin nahayna intaas oo kaalin baa siin kartaa hadii aad tusaale ahaan ninka awood badan inaanu yeelan uu wax eego oo fiiriyo kaliya view only waa ka dooranaysaa laakiin anaga adeer Ali waxaan niri laba awoodood baan siinay accountant inuu yahay iyo payroll manager inuu yahay okay marka kadibna maxay close ka dheh hadii aad rabto marka Ali inaad wax ka bedesho magaciyo kale inaad bedesho ama passwordka inaad bedesho ama kaalintii ulaa inaad bedesho maxaa sameynaysaa bartii ku soo noqonayna company dheh kadib users imo kadibna waa maxay set up users ka dooro set up users goorta tiraado Ali baan dooranaa Ali marka tiraado marka Ali baan rabnaa wax ka bedelno edit goorta tiraado waa ka magaciisa waa bedeli kartaa passwordka waa bedeli kartaa tusaale ahaan payroll-ka kale aan rabnaa inaan ka saarno payroll-ka kale aan rabnaa inaan ka saarno inuu awood u yeelan wax alla wixii shaqaalaha ay mushaarkooda ku saabsan remove baa dhahaysaa hadii aad rabto awood kale inaad siiso مثلا bangiyada waxa inuu awood u yeesho bankiga kale aan ku soo dareynaa baa dhahaysaa kadib okay waayahay user cusub oo kale aan sameeyno user cusub soo sameeynaa company baa imaanaysaa users dheh kadibna set up users dheh waaya new mid cusub aan sameeynaa ka shiftiga hore inuu shaqeynay ka soo qaad shiftiga dambe waxa shaqeeyo tusaale ahaan Faarax min dhahan waaya Faarax dheh waxa u sameeysaa passwordki u sameey waaya Faarax isaga shaqadiisu maxay tahay Faarax tusaale ahaan shaqadiisu waxa ka soo qaada inuu tahay inventory-ga badeecada meesha taal iyo maamulkeeda inuu shaqo ku leeyahay sidoo kale waxa ka soo qaada purchasing wixii la soo iibinayo inuu awood u leeyahay tusaale ahaan time tracking in shaqaalaha waxa xilliga imaanaya inuu maxaan ku raadaa awood u leeyahay adna saddex role baan siinay kadibna okay qoraysaa kadibna maxay iska xir users-ka hadaan rabnaa inaan fiirino bartii ku soo noqo company imo users dheh kadibna view users baa dhahaysaa waa administration-kii muxuu ahaa Ali iyo Faarax hadii aad rabto company inaan soo furto hadeer company-ga aan sameynay waxa kale oo ka tagi kartaa open or restore na dhigi kartaa open restore dheh next goorta tiraado oo kan company-yadii baa inoo qoran ilaa aan inaan furno open dheh marka waaya Ali oo kala dooro okay ilaa aan furno waaya marka halkan nimaga daay u fiirso company badan baa ka muuqday barwaaqo iyo qaran baan inaan ka saaro barwaaqo iyo qaran si aan uga saarno marka waxa sameynaysaa ugu horeyn horta labada tan waa inaan furtaa ilaa iyo ilays ilaa aan furana kadib waa soo noqonayna hadana waxaan furi doonaa ilays aan sameyno ilaa aan furaya hadana waa maxay waxa timaadaa bartii ku soo laabo open dheh kadibna waxa timaadaa ilays oo kale waaya oo marka waxa dhacay maxaa dhacay open previews ku soo laabo labadii aan rabay inaan tirtiro hoos bay mareen labadii aan rabay inay ii joogaan waa maxay kor bay ii joogaan fiiri ilays kor bay taagan tahay ilaa ana kor bay taagan tahay halka barwaaqo iyo qaran ay hoos joogaan
marka si aad marka labada tan wixii aad rabto inaad ka saarto waa inaad hoos marisaa. sidee hoos u marin kartaa? kuwa aad rabto inay kuu joogaan oo ay jiraan fur. kadib maxaan sameynaa marka labada maadaama aan inaan meesha ka saarno, meesha hoose imo set number of previous companies dheh. number of previous 4 company bay ahaayeen, waxaan rabnaa 2 company inay noo soo haraan. labada company hari doona waa labada u horeeya way listiga. okay dheh markaan saan iraano file imow, file markaad tiraahdo previous waa ka liskii waa ka baxeen, ilays iyo ilaa kaliya meesha ku haray. casharkeena halkaas ku eg yahay. aad tawfiiq.